أولا waxaan leenahay kacdoonadan iyo dhibtani kama jireen haddaynu quraanka raacino ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay alladina aamanu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahumul amnu wahum muhtaduun baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kuwa iimaan laga helo ee aan iimaankooda ku dheehin dulmi aan dulmi ku dheehin ulaa'ika lahumul amnu wahum muhtaduun kuwaasaa ammaan iyo nabadi u sugnaatay oo fawdo iyo ka dheer maxay iyo fitan iyo mashkilad haddaba waa maxay waasidada u dhaxaysa waxaan leenahay waasido ظالمينتو ay iska indhatirtaa jirta غوغائيينتuna ay iska indhatiraan iyo asxaab alma'aarib alukhra kuwa madaxdee raba inay wax dulmiyaan way iska indhamaraan wax magaratada buuqdaana way iska indhamartaa waa maxay waasidadaasi waa alcadaala fawdo iyo dulmi waxa u dhaxeeya loo baahan yahay in la raaca waa maxay وطريقة عدالة وكتاب السنة يشيغيا عالم الإسلامي مكا محاكا جدا الدكتور الخبير السياسي العالم المعروف ليلادو دكتور عبد الله نفيسي أيوح قتل المام يوح لي الثالث المهلك صدح شيء وحلاقة عالم الإسلامي هيستبويل وما حي صدح شيء حلاقة شيء خاص الشيغيا ninka khabiirkii wuxuu leeyahay saddexdan halaagay waxa ka mid ah buu leeyahay at-tughyan as-siyasi xadgudub siyaasiya oo qilla yar ama koox yar intay madaxnimada ummadda qabsatay intay iyada qaraabada wahayd ama waxaydna intay ku soo xeertay dabeetana basharka intii kale sida xoolaha loola dhaqmay waxay culamo iyo cuqaal iyo dad maskax leh iyo aqoon-yahan iyo waxgarad ay lahayd la ignore gareeyay ama se la tuuray oo طائفة يري وأصحاب الظلم والطغيان أي قعنت كودجة وهو أركي أبو لي مضح نمدو إني مغنم تهي يعني مسؤولية دهين إني تهي مال ضدك لقو بابا لقو دعاه يعني أركي إني تهي محي حل آخر لقو ويدين أيه هي امتحانات قرار سنس قضبك الله بعض حقوق المامية وسوء توزيع الثروة ummaddu waxay haysatee hanti iyo maal iyo sharafti ahayd oo in gaar isku koobtay dadka intiisa kalena la qadiyay fi'a qaliila ayaa qaadatay buu leeyahay wixii ummadda muslimkii ay lahayd xoog iyo xolaba biaqdar mutafaawita ku qaadatay intaasaan raadaysa buu leeyahay qadaayaadka siyaasiga iyo cilaaqaadka caamka iyo kuwa qadaa'iga iyo wax walba hantidooda ku raadeeya iyadoo maanta falsafati dawla fi lcaalam ama theorieska maanta dunida laga warramo aragtiyaha siyaasiga laga warramo maxay ku salaysan yihiin dhammaantood waxay ka warramaanuun how to distribute the wealth duties and rights power and opportunity bay yidhaahdaan filosofiga dowladnimo ee kala gedisan ee dunida yaalla iyo wixii mufakir dunida soo maray ee qadiya siyaasiya ka warrama gaal iyo muslimba waxa laga warramaya waxa weeyaan sida dadka loogu qaybinayo hantida xuquuqda waajibaadka awoodaha opportunitieska furaska iyo waxa ummaddu ay leedahay sida loo qaybinayo ayuunbay ka warramaa maxay caalamu siyaasaba ama theoryga aragtiyooyinka siyaasiga la sheegaaba inta tan wuxuu leeyahay cid baa isku qaadatay iyadoo dadkana loo arko inay yihiinuun wax jeebkooda la baadho uun mujtamacu maanta nidaamka siyaasiga dunida u dhisan tahay waa taxpayer cashuur bixiye laakiin inaga caalamul islaamiga dadku ma fahmaba inuu cashuur bixiyo qof kasta intiinay hor fadhida dhammaantiin cashuur baa laydinka qaadaa saa ma ogtiin qof kastoo ay hor fadhiya cashuur baa laga qaadaa waxaana qaada dawladda markaa meesha ka jiriya nidaamka ka jira siday u qaybiyeen ama dadka ugu qaybiyeen ama wax ugu qabteen baa isweydiinta leh adiga cashuur baa laga qaadaa soo ma ogid koobka shaah ee aad cabto biyaha inay dawladdu badh qaado oo shaaha madow cashuur laga qaaday oo sonkorta laga qaaday oo maqaaxida laga qaaday oo guriga laga qaaday waxa kan marka laga qaaday yaa bixiya
ninka taajirkii ma bixiyo. ninka taajirkii expensive weeyaan markuu alaabta soo dejiyo cashuur boqolaal kuna laga jaro boqolaalka kun wuxuu ku xisaabiyaa waa kharashkii jawaankan saaraa dabeetana macaashkiisu dul saartaa kharashka jawaankan saaran ayuu ka go'an yahay waa adigaagan koobka shaaha iibsanaya markaad laba shaaha cabtaba mid baa dawladdu cabtay soo saama ogid yani qof kasta oo jooga oo bulshada ka tirsani jeebkiisa ay dawladdu wax ka qaadaa su'aasha isweydiinta leh waxa weeyaan maxay ku qabataa sidee ummadda wax loogu qaybiyaa taxpayerku waa qofka caadiga ah ma aha ninka taajirka haddii income tax laga qaadayo maalan macaashka waxa la yiraahdo haddii la xisaabinayo dhaqaalihiisii sanadka soo galay wixii uu faa'iido wax laga qaado kaasaa isagu ku bixiyay ama qalabka waxa dawladda iyo dekad iyo meel kasta ka soo dega intiina hor fadhiday inta lamida laga guraa wajeebkaaga koobka shaaha cabtaa markaa barbay dawladdu cabtaa xagay martaa waa suu tawziic qadiyada saddexaad ee uu tilmaamaya ninkaasi waxa ka mid ah waa waxay u tilmaamaan attabaciyya lilxalif alkhaarijiy waa in nidaamadii caalamulislaami ka jiray ay u hoggaansan yihiin oo daba socdaan dawlado iyo nidaamo kale oo dabadeed oo wax kastoo awaamir oo qoladaa ka soo baxda dawladahaasi way fulinayaan dadkeeda waxgaradka iyo aqoon-yahankeeda iyo culamadeedana loo dhagraaricin maayo bulshadii ay ka tirsanayd waxay sheegayso lama dhegaysanayo ama superpowerska dunida ka jiriya dawladaha waaweyn waxay yidhaahdaan kaanama iyagu yihiinba maamulada dhabta ah ama madaxda dhabta ee dunida ka jirta oo waxay iyagu yidhaahdaan hore laga fulinaya waxaad moodaa qaar badan oo ka midi ma odhanayo dhammaantood laakiin qaar badan oo ka midi inay u sii socdaan sidii kuwa quraanku sheegay fatara alladina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira fa'asa Allahu an yatiya bil fath aw amrin min 'indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin waxaad arkaysaa baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala qaar badan oo qalbiga ka buka oo gaalka iyo cidda kale ee dabadda joogtaa waxa ay tidhi xaggooda u sii cararaysa oo marka la yidhaahdo war ummadda sida ka daayana odhanaya balaayooyin baa inugu dhacayo waxba ummadda danteedaanu sidan u yeelay waxaanu gaalka u daba soconnaa waa danta ummadda ilaahay wuxuu leeyahy facasa allahu an yaatiya bilfathi aw amrin min cindih waxaa la arkaa in ilaahay subxaana wa tacaala nicmo iyo furasho iyo wax keeno oo ay hadhow ka murugoodaan caalamulislaami dhibaatada ka jirta duwalka muslimiinta jooga in badan oo ka midi xalka dhibaatada waxay u arkaan inuu yahay alxall اlamni in la isku dayo security-ga in la adkeeyo mukhaabaraadka iyo dadka basaasa iyo kuwa dhegaysta iyo booliiska iyo xidhxidhka iyo dadka u neefta lagu sii dhajiyo la yidhahdo kacdoon baa soo socda waa maxay xalku markaa xalku waa in laba aanay sheekaysanin waa inaad sida dhagoolka wada socotaanuun dadku qofba meeshiisaba waayo dawladda idin dhegaysanaysaa dawladihii way arkaan in karaya dherigan ay sitaan way u muuqataa laakiin in badanoo ka midi xuluusha qura ay arkaan waa maxay waa alxalli alamni uma alamni uma alamni uma alamni in xalka lagu daya uu noqdo xal caskariya oo xagga nabadaynta iyo xoojinta iyo baabkan lagu dayo xataa caqliyada dadka ku dhodhow waxay ka dhaadhiciyeen kan yaraynu ku noolay waxaad maqlaysaa haddii qofba uu ra'yi fiican jeediyo tobanadayoole nabadda waxa yeelin war nabadda wax idin kama hadal nabaddu ha joogto nabadda cidi wax ma yeelayso laakiin xumaha ha la joojiyo waxa laga bedelo samaha ha la sameeyo xal amniya in wax walba lagu daro in dadku mar kasta uu kala doorto dulmiga aan aqballo iyo fawda aanu cararun inay tahay waxa la kala dooranayaaba gardarra ah waa in dadku ka fakari karaa in xal saddexaad jiri karo oo ah inaynan fawdo u socon fawda waxba ma tarto ninka soomaaliga ana u malayn maayo maanta baabka in laga wacdinayo soocaynkaa maaha soomaaligu fawdada iyo fitnada iyo baabka waa khabiir 20 sano in ka badan buu tajribadeeda waday waa experts inaga dunida u sharxayna maanta waxay waxaas wadato idan kaacidi kuma yeedhayso iyo wuxuu keenayo laakiin taa macnaheedu maaha ظلمك هلا بركاي تام معناه هذا مرة ما نقول ما يصير ظلمك هلا بركاي واحد شرت بيدا هذا قاعدة معروف والله يقانوه
haddaad pressureka badiso excess pressure explosion unbuu sameeyaa yacni alkabti zaa'id cadaadiska dheeraadka ahi ama mustamirka ahi infijaar baa ka dhasha qarax baa ka dhasha haddii shayga cadaadis tiro badan lagu sameeyo shay kastoo intii uu ahaa in ka badan la cadaadiyaa waa maxay wuu qarxaa bulshadu intay qaadi karta ka badan hadday duwalku cadaadiyaan oo cadaadiyaan oo cadaadiyaan oo cadaadiyaan oo cadaadiyaan aakhirka waxay tegaysaa maxay qarax loo adkaysan kari waayo waxay tegaysaa thawraadka la sheegaya inay dhashaan anigu ma ihi nin thawradaha barakaynaya ama ka hadlaya ama baabkaa kama warramaya waxaan ka warramaynaa waxaan jira maxaa sababay waxaan se ka warramaynaa maxaa xal ah idan waxaan leenahay waxaa jira kaatib faransiis oo buug qoray markaasu wuxuu ku tilmaamaa wax marka la soo ururiyo macnihiisu yahay الثورات buu yidhi yasnacuhaa fashli الxukuumaat thawradaha iyo kacdoonnada waxaa sameeya buu yidhi waa dowladaha fashilkoodii ceebtoodii oo muuqatay weeyaan buu leeyahy nudumku markuu fashilo ayaa waxa kane ka dhashaan wataquumu biha الshucuub watastafiidu minha alquwa almunadama bay dhahdaan shucuubtaana ku kacda bay dhaheen thawradaha yaa midhaheeda goostee ka faa'iida cidda nidaamsan ee isku xidhan unbaa marka dambana midhaha goosata qasab baa thawraddu markay dhalata inay khayr keento balaayay dhali kartaa cidda nidaamsan ee isku hagaajisatay waxeeda ayaa midhahana goosata waxay leenahay marka qiyaadaadku madaxdu ummadda dee madax bay u yihiin madaxnimadu waa maxay soo jidhku madax ma leh waa jidhka madaxiisii qofka haddii madaxa la gooyo waxba ma aha madaxdu sidaa weeyaan maadaama ay madaxdu sidaa tahay waxay dhahdaan maamul wanaaguba waa laba shay waxay dhahdaan nisfuhu hayba wa nisfuhu idaara bay dhahdaan nus madaxnimada ka midii waa haybo iyo ixtiraamka la siinayo nus ka midina bay dhahdeen waa idaariya maamul madaxda haddii la ixtiraami waayo laga dambayn waayo waxba noqon maayaan dad maaha haddii lagalama dhigo suuqada dadka magaalada iska jooga haddii lagalama dhigo waxba ma tarayaan madaxnimada macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihiin nisfuha waa hayba waa ixtiraam iyo ka dambayn waa weynayn nuska kalena bay yidhahdeen waxa weeyaan maxay waa idaariya maamul laakiin madaxda haddii la toosin kari waayo ummadda bay yidhaahdaan aan dabdin karin ummadda aan kontrooli karin ummadda aan ilaalin karin madaxdeedu waa ummad khatar ku sugan hadduu qof ummadoo dhan madaxa cumaamadda ugu duuban ay noqoto dee meeshuu doonu kala dhacaya walidalik baa axad alculamaa maqaal uu qorayo wuxuu ku tilmaamayaa xukaamtu buu yidhi alxukaamu cindana aalihatun laa yus'aluuna camaa yafcaluun aw annahu anbiyaaءun munazahuun macsuumuuna can alkhaطaa buu leeyahy maaha eray saxna maaha madaxdu inay noqdaan allaan wuxuu sameeye la weydiinin waa in iyaga la weydiin karaa la imtixaami karaa la xisaabin karaa macsuumiinna maaha nebiyadunbaa macsuumiina waa basharo akhtaa iyo gafafiya waxbay leeyihin waa maxay waxaynu raadinaynaa marka umamku ilaahay subxaanaه wa tacaala nebiyuu soo dirayo rusul qudwa u ah kuwa lagu daydo qaala yaa qawmi icbudu اllaha ma lakum min ilaahin غayruh in antum ila muftaruun ya qawmi laa as'alukum calayhi min ajrin ajriya ila cala aladii fataranii afalaa tacqiluun fii suurati huud nabiyullaahi huud wuxuu leeyahay wardadow ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh waxay la yimaadaan nebiyadu iyagoo dad kale ilaahay caabuda ma lihidin cid kale oo caabudaan oo xaq lagu caabudee ilaahay caabuda macnaheedu waxa weeyaan caqiido saafiya la kaalaya caqiido saafiya la imow macnaheedu waxa weeyaan inaad rabbiga oo qura ka dambaysid basharkana aad ku xorowdid wixii rabbi kuu dejiyey aad raacdid oo rumaysid cidnaba aanad ka cabsanin alle mooyaane idan ambiyada waxay u timi inay dadka xorayso oo ka xorayso asnaamta bashariga ah
iyo kuwa dhagxantaaba laga xoroobo oo ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa loo xoroobo. ثاني الأمر إن أنبياء كل واقع وحويان أمة إن هنتدي الله إلى عليه مركا النبي ولبوح لها يا قوم لا أسألكم عليه من أجر حول إذن كما دونيه إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. القيادة الصالحة مركا ما ملوناقا إنه لأني عدالت بكل اسم كراه وكا قرآن كإلهي وكت المامية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. آخر كوا قوليسنا يدون كانوا قوليسنا وكوا لا يريدون علوا في الأرض أدون كقاق يكبر موضان فسادنا موضان طغيان سياسي موضان فساد اقتصادي موضان. إذن أمد المسلمين توحى لقربا كو كتاب يصنع هنا الرعضة لبا وحي أي دجستين إني فليان المسلمون على شروطهم والنبي التلمامي عليه الصلاة والسلام وحي دجستان أنظمة إيا اللوائحة قوانين يد ساتير أن كتاب يصنع كهرمان إني ويان وين لفلية إمام لماذا عادل كامر كاسو النبي محمد وحكو التلمامي عليه الصلاة والسلام madaxdaasi sharaftida mudani inay yihiin kamid yahay todobada maalinta qiyaame arshur rahmaanka harsada waayo waxay ilaaliyeen cadaaladii ummadda dadka cibaadadoodii iyo diintoodii caqiidadoodii way walaaliyeen maalkoodii iyo waxoodina way walaaliyeen say u baahnaayeen way ugu qaybiyeen ummadda dawlad cadaalada ama imada cadaalada haysata إمامك عادل كأمام مضحضة إمام غرماء قيادة دمانتين قيادة عدالة كسوغاني وقيادة مطاعة ومكرمة ومبجلة وقيادة الله قدم بايو ولا وينيو ولا احترامه شرعت ساسي لغيسا شعوب تادو قيادة داسنا وحي نقضان ضد حرأة وصمها يوناق الدريمة يدد نمضي كرامة شرفت الدريمة قيادات الظالمين تاهنا ينا وحي نقضان كولا عايو والله هذا الهيو عيبتو ذهبين يا مالين بلغ الشيكيو والله نعضلو ضدكو نعو يقولنا وحي نقضان كوا ضدك النعضلو وماغا حديث صحيح مسلمي غير كيما كسوغان اما الترمذي غير كيما وريني وكان النبي عليه الصلاه والسلام كنت المامي ورما يدين كورما امرادي نكوا وشرك بدن له هابا يراهده iyo kuwa ugu khayrka badan leh kuwa ugu khayrka badan leh waxa weeyaan nabigu waa kuwa jeceshiin ayana idin jecel ee u ducaysaan ee idin duceeya ee xidhiidhsaan idin xidhiidhin kuwa baa la yidhi sharka badan lana madaxda ugu xumina waa kuwa u cadhaysantiin iyana idin cadhaysan buu nabigu yidhi idina waa necabtiin iyana waa idin necbiyin idina waa nacdashaan oo markaas soo hadal qaadaanba balaaya ku sheegtaan iyaguna meesha idinku soo hadal qaadaan baa inkaar qabayaalba idinku tirinayaan waa idin soo nacdalayaan waxaan u malaynayaa markaan mas'alada saddexaad tilmaamayo waxaan leeyahay eraygaan ku celcelinaya waxa weeyaan war dulmiga iyo fawdada wax u dhexeeyaa jira oo cadaalada oo quraanka iyo sunnadu tilmaamaya dadku inta badan mabaadi'da iyo aarada si fiican uma fahmaan لكن تصالياش يفهمان أن تصالياش بضية هضبا تصالك وهذا ندي سوقادية وحويا دولة عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إنك أكتئنا والصحابي جليلة وكم إذا عشرة المبشرين وكم إذا خلفاء الراشدين وكم إذا مسلمين تكوي وجه عليين نبي الدبدي عليه الصلاة والسلام سقي أبي بكر oo mudnaan dhammaanteed kule dadka muslimiinta ah dadka aan muslimiinta ahayn laftoodu waxay u arkaan inuu ka mid yahay dawladihii dunidan soo mara ee ugu cadaalad badnaa ama se ugu raadayn badnaa walidaalika waa ninka maraykan ee fiisisyahanka ee qoraaga ah buuggiisu qoraya la yidhaahdo alkhaaliduun almia ama the 100 buu bixiyey boqolka ugu influence badan ugu raadayn badnaa dunida taariikhda soo mara xumo iyo samaba uu isku daray Hitler yaba ku jira boqolka qof ee dunida ugu raadaynta badnaa buu qorayaa wuxuu yidhi ninka dunida ugu raadaynta badan
والنبي محمد عليه الصلاة والسلام إسقان رميسنين هذا يسقو لكن وحن بو قيميني رادين تدوني دك جت والنبي محمد بتلمامي عليه الصلاة والسلام marka uu tilmaamayo dadka ugu raadaynta badan la wuxuu ku tilmaamaya Umar ninka koob iyo kontonaad buu ka dhigaya Umar bin al-Khattab Umar muxuu ku caan yahay qarnigii hijriyadu markay 17 ahayd yani sanadkii 17aad ee hijriyada ayaa muslimiintu waxay furteen dholalkii ay furfurteen waxaan rajaynaya inay ka mid ahayd ahwaaz waa meel la odhan jiray wakhtiga alkuuri sabca baa la odhan jiray 7 goob meelood oo la isku dara ayaa la odhan jiray ahwaaz waa Persia laga furtay Iran baa laga soo furtay waa meeshuu ka talin jiray markaa boqorkoodii Hurmuzan la odhan jiray dabeetana markii meesha la qabsaday ayaa waxa la soo diray siday taariikhyahanadu sheegaan Hurmuzankiyo maxbuusa la soo qabtay dabeetana wixii xoolo laga qabsaday iyo meesha wixii la qabsado dhan iyo Hurmuzankiiba la soo diray wafdi muslimiina la soo raaciyay oo kamid yahay saxaabigii la oran jiray Anas ibn Malik oo kamid yahay taabicigii weynaa ee la oran jiray Al-Ahnaf ibn Qays markii ay magaalada Madiina yar soo jireen ayay dhaahdeen aan Umar tusno bal boqorada kale iyo meeshan sida looga dhaqmay ninkii bay yidhaahdeen war waxaagii oo dhan xidho wixii boqortooyadoo dhan xulalkii deebaajka iyo dahabka lagu toltolay iyo koofiyadihii ama taajkii madaxnimo iyo mujawharaadkiisii oo dhan bay ku taxeen isagoo boqor u muuqda magaalada Madiina la soo galiyay markaa oo la wado si taariikhyahanadu sheegayaan Umar baa gurigiisii la tagay waa la soo waayay Umar may baa la yidhi waxa la yidhi masaajidku idinku sugayaa Umar masaajidku joogay uu iska seexday Umar oo masaajidka hurda ayay soo galeen Umar saxaabi cadaalad dadka muslimiinta u sameeyuha masaajidkaas uu iska seexanay laakiin isagoo masaajidka jooga ayuu haddana nin mubajjalo la weyneynayo la ixtiraamayo yahay Umar oo hurdo markuu arkeen ayay fadhiisteen oo aan rabin inay toosiyaan halkaas la iska fadhiistay markay arkeen Umar inuu jiifo Hurmuzan baa wuxuu yidhi warninkaynu raadinaynay mee waxa la yidhi huwa daa kalgaa hurda madaxweynihii waddankan dhan ee Beersheba soo qabsaday ee uu ka yaabanaa ayaa la daydayo wuxuu noqday nin meel hurda dabeetana su'aal buu weydiiyey wuxuu yidhi ayna xarasu wa xujaabu ما يكوي إلى لنا يو سكرتيرات يو بروتوكولات يو وحي كهرية حقيقة مغيين يقول وحكي لنا وحي يوردم حقيقة جرام بالا يدي وحلا يدي حرس يحجابته أنا ماله وعبا ماله مقالة يسوس كده حجوغا وشي سوسي تايو وحضارنا وشو كتوسيابا waxay yiraahdeen weer taariikhiyaanadu ay sheegan bay yiraahdeen buur Hurmuzan marka ku dhawaaqo ah adalta fa aminta fanumta wad cadaalad samaysay dabeetana nabad baad heshay dabeetana waad ka seexatay al-adala in dawladda lagu kacay inay tawrada dhacdo daaye ninka halka marayaan cid oranaynin ila haddin ma عمر محان عمر كي كواد وشيغيا مرقي واوينا ور دولدهان غالده هدا نول قار كميده ايا رئيس الوزراء ياشودو انتي ان 11 سبتمبر دي waxaan dhicin tareennadayna la fuuri jireen tareeka caadiga ama maqaaxida caadiga soo rئيس الوزراء ka shaahaya ama wasiirka shaahaya ugu imanaysa bala ma qabo nin madaxo caadiya weeyaan wala askar ba daba ordaysa wala cid ba daba socota wala meel ba loo xidhaya waa qof caadi ah dukaanka ka wada adeeganaysa cadaaladdu waxay keentaa marka inuu qofku muxtaram noqdo in imaamka muslimiinta ama madaxda muslimiinta qiyaadada laga dambeeyo ahdigii Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz nin aalim faadil abu ha madaxa ayaa umaashiisa mid kamid abu waraaq qoray waraaqdaasi waxay kamid tahay culimadu yiraahdaan waraaqada taariikhalka ee umaradii dambana xataa isticmaali jirtay waa waraaq ereyo yar kooban ku qoran laakiin macnaheedu ballaaran sida wuxuu qoray قد كثر شاكوك
وقل شاكروك فإما عدلت وإما اعتزلت والسلام. رغض وانت أو مدحوينه صغري وحكو صغري كوي كاش تكوني ويتربطين نكي واليك مدح ذهبوا حليه قول هذا كاش تكوني سا واتربط انت كوكو مهدينا يانا ويريه يا ما عدالة سميه أما يسعس الوير نبض يبو جوابي مركا والسلام. عالم الإسلامي مركا مسلم كمسلم ها النظام كصاصوها قفك إن لا يدور شكوى ذا تربضتي عندكم ما هدينا سنة ويرتي كوح يرى منفعين وكو أكبر يكسنوا وياه وحقول عنتين تنكو كور رحين يسا يا ما عدالة سميه أما يسعزل وعلى هذا حمص عامل كذا وراق صغرى حمص والكوفة الصغرى بين هذا تاريخي الندو كوفي وماشي وقو اشتكى بالنيدة ما حدا اشتكيسه حمص نوع حيد هذا كوفة يربى لورنشري تاريخي الندو نكور ربيان حمص بوراق لوغا صغرى عامل كذا عمر بن عبد العزيز وحكوري مقالدي ويد دندنتي إلا يصلاحينا ويوبا هنتي وراق يركوبا بوغرى محاقو قرن دور رايوك له إمام الطرطوشي سوسو ورنا سراج الملوك حسنها بالعدل بكوري ونقن طرقها من الجور والسلام. مقالة ما يدون دون سنتها مقالة واحد قلعات وقد اكتاكوها قاعد تسابيري عدالة ودوين كيدنا ظلم قاعد كقاعدة كن نظيف في بوري أنا قا waxay khusayyaa buu leeyahay muhiimka ay ahay inay cadaaladna jiro dulmina aanu jirin waxaynu tilmaamaynaa marka waxa weeyaan thawraadka iyo digdigtan iyo waxan buuqan si aanu u dhicin madaxdu ama waa inay cadaalad samaysaa ama mas'uuliyaddu waa xil culus oo inay iskaga tagtaa iyaga aakhiradood iyo adduunkooda bas u roon xataa waxaad moodaa mas'alada maanta عالم كقالد ومرر بدن إنه كجف عين قلاد المسلمين تا قرنا ما يارمو قرط يساي سد بالرجين عالم الغرب هم مغرس يا مدحوينا السلي ين مدحو عيب كصاب حباب وكصاب لبعتن شركة هدو عيب بما وقلا إنه هي ونو تاجنا ده بالربا مدح دو حيوبا هم تمرك المحاسبة والعزل قيادته وعقد الرضا ما هي عقد قصبة وهي فقهاء يدهدان عدة جنودة إنه مدح نقضابا جنودة إن لعسلنا وهو حفظت عدة جنودة عقد الرضا هدوي عدة جنودة إن مدح لقدقه با جنودة إن لريده بلا نجنا عمر قواعد كده بشرقار كم إذا مركزين الدريمينا عدالة هي مدح تصير الله رغبا من نوعيتي قواعد عمرية وحلا إلى ذات رعانة محاكم إذا بيدها وراها عمر لقوية قاني متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا لمن كان مضحضة يا ولاد واقع شوكتي وحي ودق دق ميمين وران كرنا دي دولتها ما انت تشري لها تاريخ خليفة ملا ما انت واسك الدول يرو ما لها كتير ووالية دي ما لها حكومة شروك عليه خليفة إسلامية بشوكتي ولاداس عمر wuxuu kula dhaqmayay muslimiinta inaanay wax dhib u geysan qof muslimin aan la dulmin ama madaxnimo inaan loogu xoog sheeganin qaacida qawaacidiisa kamida bay qaacidada labaad qawaacidiisa kamida waxay ahayd nimanka madaxda inuu xisaabiyo yiraahdo minayna laka hada qol waraaqo qoro wuxuu yiri adoon waxay sanbaan ku oga haddana waxa la igu yiri xoolaad foofsatay bal halkaad ka keentay soo sheeg buu leeyahay وأمير دن ومصر دن حكمه عمر بن العاص أقول لي كان عهدي بك أن لا مال عندك وحلام بانك جوجا هذا إن حول كوفة فين بان مغليبوا لي من أين لك قاعدة عام عمر يقارن بيهد بل قاعدة ينسدوا استعمال الشركات كما دعنا تصير أما سدوا إلى أن تجري بلشدة الدرين كذي ومضى حتى مررك قاركود دا ولاد اللي ظلمين يو ضد أي اشتكى بينك كينيا سدوا لدق ما يدا اشتكى ضاي بانتاي وقرنا يا عمرنا يبانتاي كوفة waxay ahayd magaalada badan reer Kuufa qolo kamida baa isu tagtay oo waxay yiraahdeen
sacad aan ashtakayno. sacd ibn abi waqaas saxaabigii la odhan jiray 10 المبشرين ka mid ahaabaa madax u ah. sacad baa war laga diray, cumar baa laga soo ashtakaynaya. laakiin waxay ogyihiin cumar iyo siduu wax u qiimeeyo, waxay la eegteen darfi yar xasaasiya oo waa maxay? waa waqti gaaladu ay soo urursatay, muslimiintuna ciidamo ay ururinayeen, dagaal lagu sii socdo, khatar bay la eegteen. waqtiyadaasna muslimiinta kelmadooda inay kala jabtaa waa wax adag. waa dagaalkii Nahawand la odhan jiray markuu dhacayay. Nahawand waa dagaaladii ugu waaweynaa ee saxaabadu gasho ka mid yihiin. waa beershiya dagaalkii ugu dambeeyaan rajaynaya ee xuduudda lagaga saaray. dagaalkaasi markuu dhici doono oo gaaladu isu soo urursatay oo aad u xooggan yihiin oo muslimiintu marka ay ciidamo ururinayaan bay ashtakadan geeyeen, waxay u geeyeen cumar. waxaa laga soo gaadhsiiyey cumar oo ninka madaxda noo ahi cadaalad wax kuma qaybiyo, wax ma sameeyo. say u soo wadeen bay xataa idhahdeen salaadana ma yaqaano. hadda waa saxaabigii nebi maxamed la noolaa ay idhahdeen laa yuxsinu salaana xataa. dadka wax sheega de markasta madaxda waxaan laga sheegaya weligaa run ha wada moodi. madaxda sida qofka caadigaaba wain jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu baa la yidhi. walaalka muslimka ee madaxda isagaaba ixtiraam dheeraada sii leh in la hubiyaa mudan. dadku waxa jaraa'idku qoranaya waxa meesha qortaba oo buunburinaya waxa la yidhi maha wax soconaya. cumar wuxuu lahaan jiray nin la yidhaahdo moxamed ibnu maslama, saxaabi la odhan jiray oo la yidhaahdo wuxuu u qaabilsanaa waaliyiinta iyo waa mufatish caama baynu odhan karnaa, waa tacbiirka cusub ee malaa'imka laha. ninkan soo taxqiijiya, soo baadha madaxda gobollada haysato oo dhan. moxamed ibnu maslama buu soo diray, wuxuu yidhi qadiyadda iga warkeena. moxamed ibnu maslama baa magaalada yimi, masaajidii magaalada buu si calana u tegey. madax meel hoose lagula hadlayo waxaas ma jirto, masaajidku iska taagaya. sacd ibn abi waqaas baa lay soo diray, maxaa kaga cabanaysaan? masaajidku tagaaba waxay dhahaan khayr waxaan ahayn kuma ogin. saxaabigii nebiga si fiican buu wax u maamula, khayr waxaan ahayn kuma ogin. qoladii mushkiladda soo samaysayna masaajidda way dhegaysanayaan oo way aamuseen. dadkii kalena waxba waa sheegi waayeen. markii dambe masaajidka reerkoodu leeyahay la isla yimi oo qoladatan ay ku badnaayeen, bani cabas meel la yidhaha masaajidkoodaa la yimid. dabeetana wuxuu yidhi saxaabigii taxqiiqa samaynayay, ilaahay baan idinku dhaariyey nin waxooga waxa qarinin. intuu meesha istaagayba wuxuu leeyahay moxamed ibnu maslama, ilaahay baan idinku dhaariyey nin waxoogow waxa qarinin. usaamata bnu qataada nin la yidhaahdo oo nimankan mushkiladda wadaya ka midaba istaago, markaasuu yidhi mar haddii aadna dhaarisay si siman wax uma qaybiyo, dagaal kama qayb galo, salaadda ma hagaajiyo, waxbuu akhriyey. wixii markuu maqlay ayuu soo kaxeeyey. bes intiinan iyayna keena baa la yidhi, iyo sacadba madiinaa loo dhaadhiciyey. cumar baa loo geeyey, wixii bay akhriyeen. cumar sacad wuu casilay. sacad markay qoladii wixii sheegeen, sacad nin awliyada ilaahay ka mida buu ahaa oo hadduu gacmaha kor u qaado la cabsado, mustajaabu dacwa ah. ilaahay buu bariyo, wuxuu yidhi bay yidhahdeen culamaai taariikh, allahuma in kaana qaalaha kadiban wa riyaa'an wa sumcatan faacmi basarah wa aktir ciyaalah wacarridu limucdalaati lfitan buu yidhi baa la yidhi. ilaahayow hadduu been ay tahay waxa uu sheegay oo istustus iyo ismaqashiis iyo madaxdan ku cadaadiyun dee uu uga jeedo, ilaahayow indhaha ka rid buu yidhi, oo carruurtiisa badi oo fitanka iyo mashkilaadka u bandhig. intii uu sheegaa ku dhacday sacadkan. waa indhabeelay, ee gaboobay, 10 dumar uu dhalay, meelahaas haddana hablaa yaryariyan jiray. kan intii uu ku dhacay, intii uu sacad ku habaaray ayaa ku dhacday. cumar sacd ibn abi waqaas dar'an lilfitna fi lmujtamac, iyo inuu gooyo maadatlljadal iyo qiil iyo qaalba, maadaama goob dagaal loo sii socdo mashkiladdu ay tiro badan tahay, ayuu sacad casilay. sacadka la casilaya waa kuma? sacad waa saxaabi qiimo leh, waa 10 المبشرين buu ka mid yahay. waa ninkuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku lahaa irmi
fidaaka abi wa ummi cid kale uu ku yidhi weedhaasi ma jirta baa la yidhahdaa aabbiyo hooyaa kugu furtaa sacad unbuu ku yidhi baa la yidhahdaa sacd ibn abi waqaas waa ninka lagu tilmaamo awal sahm fii sabiili illaahi loo tuuro waa ninkii koowaadee tuura sacd ibn abi waqaas cumar markii uu geeriyoon doono wuxuu yidhi dada waxa ogaataan xadiidka bukhaari ku yaalla inaanan sacad cajzi iyo khiyaamad midna u casilin sacad inaanu nin karti daranoo wax maamuli kara aanu ahayn inaanan u casilin inuu wax khiyaamayeyna inaanan u casilin taa ogaada buu leeyahay ee muslimiintun kelmadooda inaan midoeyaan u casilayay walidaalika wuxuu tilmaamayaa 6 nin ee madaxnimada muslimiinta u sharaxan buu ku daray sacadku ka soo casilayeen halkaa haddana wuxuu ku darayay 6 nin ee markuu dhintay uu yidhi ha laga doorto madaxweynaha muslimiinta ayuu ka mid ahaa waxaan leenahay cumar wuxuu raadinayay bulshada muslimiinta iyo isku xidhaankeeda waxa uu tilmaamayaa caqdiga ka dhaxeeya bulshada muslimiinta inuu yahay kalgacal iyo walaalnimo iyo kalsooni inaanu marnaba burburin madaxnimadu noocaasi ku macaanta madaxnimadu waxay ku macaantay inaanay noqonin almughalaba walmushaaxana meel xoog lagu kala qaado iyo isqabqabsi iyo digdig waayo taasi ma keento cadaalada aasaasna waxa uu ah caqdigu inuu ku salaysay waxa dadka muslimiinta isku xidha wax raalli laysaga yahay iyo walaalnimo war salaad baa ugu yaroo nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidku sheekh al-albani xasanka ku saxiixa uu ku tilmaamayo bimajmuuci turuqi man amma qawman wahum lahu kaarihuun ninka dad salaad tukiya buu nabigu yidhi iyagoo karahsan maxaa ku dhaca salaadiisa halka laba dhaafiya buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sheekh maxamed haddaynan rabin inuu ina horgala maaha waa inuu ka banneeyaa meesha nabi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man amma qawman wahum lahu kaarihuun ninka dad tukiya salaad iyagoo nacaya oo aan doonaynin salaadiisu tarquwadiisa ma dhaafto kalxamihiisa ma dhaafto baa la yidhi oo kan masaajid baanay dhaafayna ka dadkoo dhan yidhi waa idin hor fadhiyaya ka warran iyadoo aan la rabin xaggee isaga dhaafaysaa markaa hal masjidkii hor fadhiistay laga kicin kari waayaa intaan lagu tilmaamay laakiin ka ummadoo dhan yidhaahda waan hor fadhiyayaa kici maayo maca daalika aan kurhigani waa kurhi sharciya inuu yahay waan iska nacnayo isku qolo ma nihin iyo reer hebel inayna maamulaha baabkaa laga warrami maayo waa kurhi sharciya waa in wax shareecadu diidan tahay inuu madax ku noqdaa ay meesha taallo ama imaam uu ku noqdaa inay meesha taallo sacd ibn abi waqaas waa 10 المبشرين ka mid ah waxaan rabaa waxaan sacad u soo qaadanaya madaxdeenu inay barato muranka hadduu bato inuu iska tago sacad mar labaad baa haddana la casilay waxaa casilay cuثmaan ibnu cafaan wakhtigiisii kuufa mar kale haddana madax looga dhiga marka kan maxaa lagu casilay culimada taariikh waxay yidhahdaan markan labaad ee sacad la casilay waxay ahayd kuufa markii dowladda islaamiga ay ballaaratay shaqooyinka waa la qaybqaybiyo wadaa'if badan baa laga dhigay madaxnimada gobolka wilaayada waxa haystay sacd ibn abi waqaas baytul maalkana qasnada dowladda iyo xoolahana waxa gacanta loo geliyay cabdilaahi ibn mas'uud saxaabigii kale loo oran jiray sacd ibn abi waqaas baa baahday bal ninka madaxda lacagta u baahday adarag wuxuu tagay cabdilaahi ibn mas'uud oo deynisi buu yidhi muddo qabsaa la yidhi aad ku bixinaysa deynta muddo qabsaday deyn muddo leh ayaa ninkii meeshaba maamulayay la siiyey yaa siinaya cabdilaahi ibn mas'uud waqtigii markay gaadhay baa cabdilaahi ibn mas'uud yima wuxuu yidhi lacagta iska keen sacdow baytulmaalka lahaaye sacadna markaa lacag ma hayni wuxuu yidhi waxba ma hayee alla iga sugo lagaa sugi maayo buu yidhi cabdilaahi ibn mas'uud ee markaad dhegaysa madax waa tahay laakiin xaq uma lihid xoolaha muslimiinta inaad qaadato dayn baad gashay waqti bay lahayd waqtigii bay gaadhay waad bixinaysaa sacad iyobay ka taagtaagantay iyo cabdilaahi ibnu mascuud cabdilaahina wuxuu leeyahay lacagta waa la keenayaa sacadna wuxuu leeyahay waqti sacad markii dambuu xagga rabbi u jeestay oo gacmaha korka u taagay laakiin sacad hadduu gacanta taago dadku aad bay uga cabsan jireen cabdilaaha arkay sacad oo gacanta sii wada allahuma markuu yidhi ayuu wuxuu ku yidhi waylak qul khayran aw sukut waar hooge ama khayr ku ducee ama gacanta dhig sacad gacantuu ka daayay labadoodii haystaan loo geeyey
عثمان بن عفان عثمان مركلو سعد عسلي إمام من أئمة المسلمين وسعد بن وقاصة ومن العشرة المبشرين أيال عسلي يدين ويسكبحين كرواي إمام من أئمة المسلمين وسعد بن وقاصة أيام مسلمين مرمي درادود ليري أنسي ودتشوق ضدك مسلمين توفي عناده إنه كدادو madaxdu markay noocaa tahay ayay dadkuna shacabkuna dadnimada dareemaa iyo karaamada u dareemaa madaxdoodu inay yihiin dad la weyneeyo oo mubajjaliin agtooda ku ah oo muxtaramiin oo samc iyo taaca leh oo la aqbalo laga dambeeyo